so requirementiga haddii aad buuxiso oo aad ku sugan tahay Canada 5 ruuxna aad ka kooban tahay heli kartid familygaaga ha ahaadaan asxaab ha ahaadaan qaraabada iyo qoyska kuugu dhow ha ahaadaan caadi weeyaan waa keeni kartaa asxaabtaadii iyo commentigaagii quruxda badan alaba asxaabta aan waxaan ku jeclaa waxay tahay asxaabteedii always comment laan ma soo dhigaan muuqaalkeygii aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha iyo qaayaha le aad ii sharaftaan ilaahay idin sharfo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن مر كلا إيا مر سدحاد مر أفراد مر أن هاد ترقان باللهين سودو هذا يا إذن الله وايو واتشانل كينا واتشانل كعد الله وآد كحيرانتهين ود هل كان آد كغا أرين ستان أما آد كهشان information هذا كسابسان أريمها قحوتيغا هذا مر والببرامج هذا أن هل كان أن كسو قد بينو وحا أيهين كوا كسابسان immigration كا قحوتي هذا Canada iyo Mareykanka xiliyada la keenayo waxa update-ka ugu dambeeyay iyo informationada markaasi aan u baahanahay inaan ka ogaano DV lottery-ga immigration-ka iyo qaxootiyada magacayga waa Shaaciye hada channel-kayga ku cusub tahay waxaan ku leeyahay welcome oo soo dhawow kuna soo dhawow asxaab ku jecel iyo anigoo naftirkayga ku jecel iyo YouTube ku diyaarsan in aad ka hesho informationada immigration-ka DV lottery-ga iyo waliba arimaha qaxootiga haddaad halkan soo gaartay waxaan ku leenahay subscribe inoo saar alarmigana furo si aad u noqoto dadka markaasi ugu horeeya ee muuqaalada halkan aan soo dhigno haddaba maanta waxaan halkan aan ku eegaynaa hababka Mareykanka ee Canada lagu imaado aad bay u badan yihiin hase yeeshee waxaan maanta halkan idinku hayaa hab ka mid ah hababka ugu fudud ee wadanka Canada aad ku tagi karto aqligan waxa loo baahan yahay waa aqli oo la isku biirsaday waana aqli sax ah oo jira oo dawladda Canada ay ogoshahay oo xitaa application loo sameeyo haddaba muxuu yahay waxa loo yaqaano group of 5 wiligaaba maqashay haddaadan maqlin waxaan filayaa inaad hadda maqasho haddii aad maqashay laakiin war fiican aadan ka haynin waxaan ku leeyahay dhegaha ii fur maskaxda ii fur indhahaagan iyo meel kale aadin ilaa iyo muuqaalka uu ka dhamaadana halkan ku xirno oo daawo oo dhamayso muuqaalka ma badna waa 8 ama 9 ama 10 daqiiqo oo adiga ku anfacaya wastiga kuguma sameynayo wax waqtigaaga oo aan dhuminayo ma jirto aan bilowna barnaamijka haddaba group of 5 waxa ay awood u leeyihiin in ay wadanka Canada keenaan 2 ruux 3 ruux 1 ruux oo ay ka soo qaadaan qaxootiyada ehelkoodii ah so qaxootiyada markay ka soo qaadayaan waxa laga rabaa 5taasi ruux midkood waa in qofka la keenay uu ehelkiisa ahaado ama saaxiibkiisa ama saaxiibtiisa ama xaajigeedii ama xaajiyadiisa waa inay ahaadaan so groupkani requirementiga looga baahan yahay ayaan ka soo qaadanaynaa 7 dawladda oo uga baahan tahay dadkan in ay sameeyaan number 1 waxaan soo qaadanaynaa oo aan leenahay groupka waa in uu ahaadaa 5 waa in uu ka koobanaada 5 group of 5 waa inay ahaadaan 5 ruux way ka badnaan karaan laakiin kama yaraan karaan 4 ma noqon karaan 3 ma noqon karaan laakiin 5 ilaa iyo 100 5 ilaa iyo 50 5 ilaa iyo 7 5 ilaa iyo 8 way noqon karaan haday rabaan 5 oo go ah way noqon karaan that's why loo dhahay group of 5 loo dhahay 5tan ruux ayaa marka horta in aad ahaataan muhiimada qodobka labaad waxa uu noqonayaa oo groupkan laga doonaya waa in ay ahaadaan US citizen waa in ay ahaadaan dad US citizen ama permanent residents sidoo kalena waa in ay ahaadaan kuwo dhammaantoodiba asalkoodii qaxooti ahaan ku yimid Canada inta markay buuxiyaan waxay u gudbayaan qaybta saddexaad oo aan doonayno haddaba qaababka aan u wadno ee 1 ilaa 7 ma ahan qaababka Canada ay hawsha u wado laakiin 7 ugu muhiimsan oo groupkan iyo dadka qaxootiga la keenayaba inay ay ogaadaan ay u baahan yihiin so 7 ugu muhiimsan loo baahan yahay weeyaan midka saddexaad waa in groupkan dhammaantoodiba ay ahaadaan dad 18 jir ah ama ka sii weyn haddii 18 jir ay ka yar yihiin lama ogolaanayo waxay u baahan yihiin inay ahaadaan 18 jir
ama wixii kasii weynba dhaqaale ahaanna waa inay isku filnaadaan saa ula soco groupkan sidoo kale waxaa laga doonayaa lambarka afraad ku jirnaaye in ay ku noolaadaan hal community hal xaafad ama hal eri oo ay doonayaan qofka ay keenayaan meesha uu ku noolaado waa in ayagana ay ku noolaadaan tusaale ahaan haddii tusaale aan usoo qaadano muqdisho qofka waa in hal xaafad oo muqdisho ah marka la soo dejin rabo 5 ruux ee groupka ku jirtana waa in isla xaafadaasi ay deganaadaan oo hadhow laga doonayo inay caawiyaan 5 saas ha ahaadaan okay qaybta afraad ayaan u gudbaynaa ee groupkan kaga hadlayno groupka qaybta shanaad waa in ay agree gareeyaan oo ay ogolaadaan in ay resettlement ama settlement support waa inay u sameeyaan settlement support waxaa weeyaan waa in markay dejinayaan ay support gareeyaan for 1 year way hal sano waa in ay support gareeyaan dhaqaale caafimaad hadduu xanuunsado everything markaa ay u baahan yihiin waa in ay ka support gareeyaan ay ka taageeraan ruuxaasi ay keeni karaan qaybta lixaad ee groupka laga doonaya waxa uu yahay waa in ay dowladda ay tusaan waa in ay dowladda tusaan settlement plan waa inay tusaan qorshaha qofkaasi ay ku keenayaan waa in ay tusaan oo diiwaan galsan oo qoran qorshaheeni waa kana bil hebel maalin hebel taariikh hebel saas ilaa 1 year qorshaha waa inay tusaan qaybta lixaad waxa ay tahay waa in ay dowladda siiyaan ama ay tusaan providing ay ku sameeyaan groupkaasi lacagta ay u hayaan qofka ay keenayaan muddada halka sana ah waa in cadeynta lacagtaasi ay hayaan tusaale ahaan haddii laga doonayo groupkaasi $20,000 sanadkii haddii laga doonayo tusaale ahaan weeyaan waa inay yiraahdaan $20,000 waatana account-kan ku jirtaa qofkana loogu talagalay oo supporting loogu sameeyay way inay dhahaan so todobada ugu muhiimsan ee aan u baahannahay idinkana u baahan tihiin kuwa la keenayana ay u baahan yihiin kuwa wax keenayana ay u baahan yihiin ayaa kuwa ah groupkan waxa loo yaqaan san horey baan u sheegay group of 5 laakiin way ka badnaan karaan hase yeeshee walkiin waxa loo baahan yahay groupkan qaabka u shaqeyn karaan idin sheegay oo ugu fudud oo ugu wanaagsan waxay u shaqeyn karaan 5 ruux weeyaan okay 5taas ruux kan ayaa waxa la keenayaa walaalkiisa 5tan ayaa sponsor u sameynaya markuu imaado hal sano uu joogo kan walaalkiisa groupka ayuu ku biiri karaa 6 ay noqonayaan kan walaalkiisa la keeni karaa ama xaaskiisa ama walaalkiisa ama walaashiisa haddana kan walaalkiisa hal sano markuu joogo waxay keeni karaan waxay ku soo dari karaan groupka 7 ruux ay saa ku noqonayaan waayo 2 walaal kale keenin awagay 5 ay ahaayeen 7 ay noqon karaan saasay ku keeni karaan dhammaantooda walaalahooda 5 ruux waaye hal group ay noqonayaan 5 kamid ah walaalahoodii ayay min 5 sano gudahood ku keensan karaan 5 sano gudahood 5 ruux oo 5tan la dhalatay ayaa imaan karta haddii u baahdaana sanad walba 2 ruux ayay keeni karaan waa haddii lacagta loogu talagalay ay heestaan weeyaan so requirementiga haddii aad buuxiso oo aad ku sugan tahay Canada 5 ruuxna aad ka kooban tahay heli kartid familygaaga ha ahaadaan asxaab ha ahaadaan qaraabada iyo qoyska kuugu dhow ha ahaadaan caadi weeyaan waa keeni kartaa asxaabtaadii walaalahaagii tol iyo qaraabo wixii markaa aad rabtid inaad keentid laakiin waa in groupkan ay isqabsadaan ay is aaminaan kan la keenayana sidoo kale waa in isagana hadhow groupkan uu ku biiro fadlan haddii aad ageen oo aad Canada joogto isku day inaad group 5 ah aaraasatid si walaalkaagii iyo qaraabadaadii iyo ehelkaagii loo keeno haddii aad leedahay information kan intuu ka keenay shaaci gal website-ka dawladda ku qor group of 5 halkaas ayaad ka heli kartaa meeshaas ayay ku jirtaa full information way ka buuxaan haddii aad u baahan tahay lawyer ayaa la kaashan kartaa habka processka informationka everything step by step na lawyerada ayaa idin siinayo dhanka kalena qofka la keenaya ee jooga Africa isagana waxa laga doonayaa haddii isaga asxaabtiisa Canada joogin aysan ogeyn inuu waco videogan la share gareeyo dhaho barnaamijkaas jiro walaalayaal ma ka faa'iideysatiin oo ikeentiin inuu dhaho weeyaan intaan dib dambe u kulmi doono waxaan filayaa inaad ka faa'iideysatay muuqaalkani haddii aad ka faa'iideystay hawaan ka faa'iideystay
ayaan kaa sigi doonaa iyo commentigaagii quruxda badan alaba asxaabta aan waxaan ku jeclaa waxay tahay asxaabteydii always comment la-aan ma soo dhigaan muuqaalkaygii aad baad u mahadsan tihiin sida qiimaha iyo qaayaha le aad ii sharaftaan ilaaha idin sharfo haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar alarmiga inoo fur intaan dib dambe u kulmi doonana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu